kumanaan qof oo ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee Stadium Konis ee Muqdisho. Isku soo baxayaasha oo ka kala yimid 17 degme ee gobolka Banaadir ayaa markii ay ku soo xaroodeen garoonka waxa ay daqiiqado kooban oo garoonka ay joogeen bilaabeen in socdaal lugta ah ay kaga soo tagaan garoonka, waxaana isku soo baxayaasha oo madaxyadooda ku soo xirtay maryo guduudan iyo maryo cadaan ah ay ku qeyla dhaaminayeen inta ay socdeen erayo ay ka mid yihiin dhiig daashe dooni meeno iyo erayo kale. Banaanbaxayaasha ayaa socdaal dheer kadib waxa ay ugu dambeyn isugu imaadeen fagaaraha taalada Dilkdaason ee degmada Boondheere. Uma muuqan banaanbaxayaasha mid la soo abaabulay oo waxa marqaati madoonta ahayd sida shacabka dibadbaxa dhigayay qaarkood ay u ilmeynayeen. Tusaale waxa ka mid ahayd hooyadan oo bartamaha banaanbaxayaasha soo gashay isla markaana barooranaysa. Mas'uuliyiin ayaa dib ugu soo biiray banaanbaxayaasha waxaana ka mid ahaa xubno ka socday haweenka qaranka kan gobolka Banaadir, gudoomiyaasha degmooyinka iyo mas'uuliyiin kale kuwaasi oo banaanbaxayaasha u sheegay in dalku uu u baahan yahay isxaqaan iyo sidii loola dagaalami lahaa dadkii dhibaatada geystay. Xildhibaan Sahra waxay ka mid ahayd dadkii la hadlay banaanbaxayaasha waxayna tiri iyadoo ilmeynaysa dadkeenii 300 go'een ilaahay waxaan ka baranay ilaahay uu naxariisto dadkeena masiibo qaran bay nagu habsatay. shacabkana waa inay dawladda la shaqeeyaan, waa inay soo sheegaan meel kasta ay ku jireen dadkeena xasuuqay tan oo kale qarax la meedha waa xasuuq intaan soo taagnaa ma arkin tan oo kale wali ma arag masiibada nagu dhacday waa mid nagu habsatay. shacabka waa inay dadka la shaqeeyaan, dawladda waa inay caawiyaan hadeen kulligeen waa inaan ooyno haddaan ooyn meel ma gaarayno oonaan kulligeena soo bixino shacabkeena soo dhexgelin oonaan xaafad kasta tagin. shacabka waxa kula dardaarmay maalin walba inay soo baxaan oo la dagaalamaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in isku soo baxa uu yahay mid baroordiiq ah isla markaana uu socon doono muddo 3 maalin ah iyadoo dadka Soomaaliyeed uu ka dalbaday in ay ka dajiyaan sawirada ay ku baahiyeen baraha bulshada meedadka dadkii dhintay oo jirkooda go'go'ay. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa sawirada foosha xun iyo fiidiyoyada aadka looga naxayo oo dadka aad ku argagixinaysaan inaad ka saartaan oo aad meydka xurmaysaan. meydka xurmuu mudan yahay, walaalka xurmuu kaa mudan yahay, waqtigan adag ee xanuunka badanna xurmuu kaa mudan yahay. qaar ka mid ah dadkii banaanbaxayaasha ayaa Saab TV la hadlay. degmada Shangaanaan ka cimid waxaanu u soo baxay masiibada ay dhacday awgeed aanu soo baxay. dawladuna waa taageersanahay, muslimka Soomaalida dhan ilaahay nabadgelyo ha sii wixiina dhibaaya Allah ha naga qabto. qarxii shalay ayaa saameyntiisa waxaa laga dareemayaa gudaha iyo dibadda. qof walba oo Soomaali ah oo jooga caasimadda ama dibadda jira waxa uu ku sheegayaa in qof ama ehel ama saaxiib ahaayeen uu dhaawac soo gaaray ama uu dhintay.